taariikhdu markay ahayd bishii labaad shanteedii 2020 waxaa la wareegay gobolka Gado dawladda federaalka Soomaaliya ciidankeeda militariga wixii intaa ka horeeyay gobolka Gado waxa ka talinayay maamulka Jubbaland ee uu hogaamiyay Axmed Maxamed Islaam 2019 doorashadii ka dhacday Kismaayo dawladda federaalka Soomaaliya waa diiday maysan aqoonsan ugu dambeyn dawladda federaalka Soomaaliya Axmed Madoobe waxay u aqoonsatay 2 sano ku meel gaara inuu Jubbaland sii hayo dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka Soomaaliya heshiis waxay ku gaareen magaalada Muqdisho taariikhdu markay ahayd bishii 9aad 2020 waxaana lagu heshiiyay doorashada inay waqtigeeda ku dhacdo dib baan ugu soo noqonaynaa siyaasadda maanta ee Garbaharey iyo Kismaayo ay kala fadhiyaan marka hore waa inaan fahanaa meeshay ka timid siyaasaddan magaalada Kismaayo waa magaalada ugu weyn Jubbaland waana magaalo madaxda ku meel gaarka ah ee Jubbaland waqtigan xaadirka magaalada Kismaayo taariikhdeeda wax yar waa inaan fahanaa muwaadin magaalada Kismaayo sanadu markay ahayd 1998 bishii 9aad waxaa la wareegay ninkii la oranayay Morgan oo u dhashay beesha Majarteen wuxuuna xukumayay 98 ilaa 2001 waxaana kala wareegay beesha Mareexaan oo markaa uu hogaaminayay General ama Colonel Barihiraale wuxuu Kismaayo xukumayay sanadu markay ahayd 2001 ilaa 2008 oo markaasi ay kala wareegeen ururka al-shabaab 2008 ilaa 2011 dhamaadkiisii ayay xukumayeen waxaana kala wareegay magaalada Kismaayo gacan ku heenteeda madaxweynaha hadda Jubbaland ee ku meel gaarka Axmed Maxamed Islaam taariikhdu markay ahayd bishii 9aad 2012 ayuu gacan ku heenta magaalada Kismaayo si toos ah ula wareegay you have seen the local still you know they are afraid because almost around 5 or 4 years they are under control of al-Shabaab by the very strong hand. That's why the civilian they get now to hope maybe they will get alive, something like that. And I'm very happy how the now situation is. aan dib ugu soo noqonno siyaasadda maanta taagan ee 2020 waxaan filayaa muwaadin inaad fahamtay jubbooyinka iyo taariikhdooda iyo meeshay ka yimaadeen saacaddan iyo maanta iyo waqtigan aan taagannahay 2020 iyo 2021 doorashada loo socdo dawladda federaalka Soomaaliya naqshad bay soo dejisay naqshadaas oo ah maamul goboleed kasta waa inay doorashada ka dhacdaa ugu yaraan 2 goobood ama 2 degmo ama 2 magaalo Jubbaland waxaa loo qoondeeyay inay doorashada ka dhacdo Garbaharey iyo Kismaayo qolo gooniya u eexan maayo haddaan ahay ugaaski duqbilow ugaaski ummadda Soomaaliyeed dawladda federaalka Soomaaliya waxaa xukuma madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kana soo jeeda gobolka Gado dawladda federaalka Soomaaliya waxay gacanta ku dhigtay bishii 2 2020 waxay kala wareegtay maamulka Axmed Madoobe waxa uu doorasho qabsaday 2019 bishii 8aad dawladdu waa diiday beesha caalamka qaarkood waa diideen qaarna waa soo dhaweeyeen ugu dambeyn Axmed Maxamed Islaam dawladda federaalka Soomaaliya waxay u aqoonsatay madaxweyne ku meel gaara inaan fahanaan u baahannahay Axmed Maxamed Islaam madaxweynaha ku meel gaarka Jubbaland heshiiskii ka dhacay Muqdisho waa soo qaatay
maalintu ku soo noqday meesha Kismaayana shaki buu geliyay ciidankii loogu talagalay inuu shabaab la dagaalamo oo hawl galo oo shabaab la dagaalamo inay shabaab la dagaalamaan iska daayay systemkii dhisnaabay dib u burburinayaan ma garanayo waxaan waagii kacaankii maxamed siyaad barre 1969kii markuu dhashay saraakiil baa waddanka la wareegtay saraakiishaasaa loo diray gudoomiyaasha gobollada oo dhan saraakiil baaniya degmooyinka ma waxaan ku soo noqonnay 69kii oo saraakiil baan hadda waddankii u diraayo ciidan baa qabsanaya waa su'aal meesha taalla gobolka Gedo dhowr iyo 10 sano wuxuu ahaa meelaha ugu waxaan u malay baardheeraha ugu dambeysay inta kale ee gobolka gacantay dhowr iyo 10 sano ku jirta halka qof ee mas'uulka keligii intuu baabuurkiisa qaato oo beled xaawo ka soo baxo oo uu doolow tago oo ka sii socdo oo yuuluq tagay oo isla habeenimada uu ka soo noqonay maanta ma dhacaysaa midaas ciidankii nabadgelyada joogay intii la burburiyay baa qayb laga kala dhigay oo iyagii maanta cadow la isaga dhigay sarkaalkii Itoobiyaanka ay habeenimo labada loo doolow iyo luuq u kala gudbaya maanta 7 habeen ku qaadatay oo la helikobtar ii doona aw amnigii laga shaqeynayay amnigii shalay waa maanta waxa la leeyahay ciidan xasilina la geeyay deegaanadaasoo weligood ka dhicin sabab inay saameyn ku yeeshaan ba hadda waxay gaareen inay guri walba cashuur ka qaadaan waxa la ii sheegayay hal nin oo foornala baa diiday ugaaskiisa intii loo dacwoodaa la yidhi bari markaan dilaad wax sheegaysaa soo gudbi waa doolo dawladdu ma waxbay soo kordhisay mise waxbay dhintay ma waxbay tartay mise waxbay lumisay taas waa su'aal meesha maalintii ku xigtay waxa idaacadda la hadlay gudoomiyaha dawladda federaalka Soomaaliya u magacaawday gobolka Gedo Mr. Maalimu saaxiibkay waxaana lagu dooran doonaa gobolka Gedo oo xor ah oo xalaal ah oo cid laga hor istaagay aysan jirin oo la rabo dadka in la isugu keeno waxaan hubaa oon ka hor istaagi doonaa oo cad dadka Axmed Madoobe uu dawada ka wada oo Kenyaatiga oo hadda Kismaayo joogo dadkaas ma imaan doonaan laakiin dadka Soomaaliyeed oo xalaasha ah oo reer Jubbaland ah oo inay wax si sax u dhistaan raba inaan keenaan diyaar u nahay way imaan doonaan haddii la raalli ka noqdo waxaan gobol dhigaynaa xarunta gobolka Gedo ee Garbaarey waxaan rabnaa oo u diyaarinaynaa cid kasta oo koraas ku lahayd halkaas inay la imaado koraasteeda xalaal leh xarunta gobolka oo ciidamadii dawladda Soomaaliya ay ku sugan yihiin oo amniga sugu lahaa haddana aan rabno inaan ciidamada geyno amnigeedana aan si buuxda u sii dhigno u samayno halkaas la imaanaya koraasta cid kasta oo baaq baan u direynaa hadday tahay ugaasyadoodii hadday tahay xildhibaanadoodii hadday tahay siyaasiyiintoodii jubbada dhexe iyo jubbada hooseba waxaan rabnaa inay la imaadaan xarunta gobolka ee Garbaarey aad baan ugu mahadcelinayaa odayaashii qaarkood oo maxaan ku raahdaa suldaamadii ka soo jeeday ama jubbada hoose ama maxaan ku raahdaa iyo ugaasyadii ka soo jeeday jubbada hoose iyo jubbada dhexeba qaarkood waxaan hubaa xal inay ku soo hoydeen xamar wayna nala xiriirayeen waxay u soo socdaan meesha xarunta gobolka Gedo ee Garbaarey waxay diyaar u yihiin inay ku doortaan Garbaarey maxaan ku raahdaa xildhibaana xalaal ah oo ayaga iskood u doortaan oo cid ku riixaysay cid ku garbinaysa midna aysan jirin in ay qabiilada ka soo qabtaan inay rabaan insha Allah ta'ala taasana rabnaa inaan ku habayna Axmed Madoobe xilku sheeganaya maanta uu leeyahay waxaan nahay madaxweynaha dawladda goboleedka Jubbaland ma jiro horena waa u sheegnay haddana waa sheegaynaa shacabka reer Jubbaland waxaan ognahay inay u diyaarsan yihiin maxaan ku raahdaa doorasho xor iyo xalaal ah dadka degan saddexda gobol la iskuma diri kara la isuma dhaxmari kara waa dad dagaalka ugu weyn ee siyaasadeeda maanta jira waxa weeye la iskuma haysto Kismaayo la iskuma haysto jubbooyinka maanta waxa la isku haystaa dawladda federaalka Soomaaliya qabaylada barta idinka muuqda shaashada yaa matali doono yaasa soo xuli doono beesha absame iyo beesha mareexan waa majority-ga Jubbaland 10 bay haystaan beesha absame jaabka Axmed bay ku jiraan beesha mareexana 8 sare u dambeysay Axmed jaabkiisay ku jireen anoo dublo banaanku i dhigay maanta ragga u dagaalamaya Axmed Maxamed Islaam waa beesha mareexan weeye oo ugu horeeyo fartaag oo ugu horeeyo Sayid Maxamuud Sayid ugu horeeyo
ugu horreeya cabdirashiid janan siyaasadda taas weeye cabdirashiid janan waa siyaasi u dhashay beesha mareexaan wuxuuna ku jiraa jeebka axmed madoobe waa dambiile ka baxsaday xabsiga soomaaliyeed siyaasi maxamuud sayid madaxweyne ku-xigeenka jubbaland waxa uu dhashay beesha mareexaan waxa uuna jeebkii ku jiraa axmed maxamed islaam kamana hadli kara arrintan siyaasi madaxweyne ekis fartaag jubbaland sanatar hadda ah wuxuu jeebkiisa ku jiraa axmed madoobe waa siyaasadda maanta taagan duqbilow oo muwaadin soomaaliyeed ah jecel dalkiisa jecel dowladdiisa jecel madaxweynihiisa axmed madoobe iyo beeshu ka soo jeeda waxay yidhaahdeen waa dabadhilif beesha mareexaan iyo madaxweynaha mareexaan u dabadhaqo cabdirashiid janan miyuusan ahayn mareexaan fartaag miyuusan ahayn mareexaan maxamuud sayid miyuusan ahayn mareexaan oo u shaqeeya axmed maxamed islaam sababta uu axmed maxamed islaam heshiiska uga baxay waxa weeye 8 sane la soo dhaafay fartaag cabdirashiid janan maxamuud sayid iyo rag badan oo beesha mareexaan u dhashay iyo rag badan oo u dhashay beesha gaal jecel beesha raxan weyn iyo 10 absabe weligiiba asaa magacaabayay axmed maxamed islaam weligiiba inay gacanta jubbaland ku jirtuu rabaa intuu ka dhimanay 2016 doorashadii dadbaneyd ee la galay waxaa lagu heshiiyey dalka in loo gudbiyo doorasho qof iyo cod ah aniga markii lay doortay bilii ugu horreeyey waxaan ka bilaabay in aan ka hadalno sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho qof iyo cod ah safar yaa waxaan ku tagnay London conference halkaasoo aad nalagu soo xoojiyey dalka inuu uga gudbo qaabkii dadbanaa ee doorashooyinka loona dalka loo wado dhanka qof iyo cod ah communikoodooda waa ku soo saareen waa ku ballanay kulligeen in dalka loo kaxeeyo dhankaas markii aan soo noqonay markiiba waxaan sameynay guddi ay ka kooban yihiin dowladda federaalka iyo 5 dowlad goboleed ee xubnaha ka ah federaalka waxaan sameynay guddi kooban oo waqti qaata oo diyaariya dhowr mawduuc oo loo baahan yahay in aan afgarad ka gaarno dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah guddigaasi muddo ay ka shaqeynayeen waxaa ka tirsanaa xafiiskayga oo ka socday xubin iyo xubno kale oo ka socday dowlad goboleedyada waxay ka shaqeynayeen doorashada kheyraad qaybsiga iyo judiciary waxaa la oran jiray FNTC yaa la oran jiray guddigii mudday qaateen waxay noo keeneen laba program ay noo keeneen in aan isku afgaranno dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah shirkii baydhabo 2018 bishii May lagu qabtay yaa wuxuu ahaa shirkaasi in lagu ansixiyo ama inteenaan aan ku heshiino oo cid walba ay maxaan ku raraa ku saxiixdo heshiiskaas dood dheer kadib 3 bari waxaan gaarnay in heshiiskaas aan soo dhamaystirno oo aan isla qaadanno dalku inuu galo doorasho qof iyo cod ah oo nidaamka la yiraahdo maxaa la yiraahdaa single constituency proportional representation oo dalkoo dhan inuu yahay hal deegaan doorasho oo aan cidna la fuquuqin Somaliland iyo cid walbaba ay qayb ka noqoto maxaa yeelay doorashadaas waxay ka dhacaysaa dalkoo dhan meelaha shabaab ku haystaan iyo cid kasta oo ka hortimaada doorashada inaan loo joojin oo dalku uu hore u socdo dhowr bilood ka bacdi anoo aaminsan inaan daahsaday markii aan ka soo noqonnay baydhabo shirka keliya aan ka qayb galay oo golaha wasiiradu wuxuu ahaa October
waxaan uga qayb galay inaan dardar geliyo sharcigan doorashada oo aan faray golaha wasiirada usbuuca ku xiga in ay geeyaan baarlamaanka iyada naftigeeda muddo ay qaadatay nasiib darro waxay geeyeen muddo yar adiga muddo ka bacdi ayay geeyeen waxay geeyeen May 2019 annagoo filaynay bacdamaa uu sharcigii diyaar yahay in baarlamaanku naftigiisu uu muddo kooban qaadanayo isna muddo kale uu qaatay marka lagu daro fasaxyadoodii waxaan saxeexay ugu dambays Febraayo 2020 markiina baarlamaanku wuxuu aaday fasax muddadaas baarlamaanku ay ka shaqeynayeen May laga soo bilaabo 2019 ilaa February anigu aan saxeexay sharcigii completely waa bedelay meeshaan ka filaynay inuu ahaado sharci hal deegaan doorasho leh waxay ka dhigeen majoritarian iyo ka dhigeen oo ah deegaano dalkoo dhan inuu ka dhaco inta aan diyaarka ahayn oo shabaabku haystaan meel kale loo waciyo ama meel kale loo wareejiyo taasi ma ahayn wixii aan ku ballannay marka dowlad goboleedyada tan waxay noqotay mid iyagu xildhibaanada sharafta leh ma aqaan cidda u akhrisay inuu kan ka fiican yahay si kasta aan yeelnay inkastoo aanan toos u soo dhexgelin haddana waa la socday markay tagayaan Nairobi iyo markay tagayaan Djibouti intaasoo dhan waxaan ogaa in ay ka shaqeynayaan waxaan ahayn wixii hore waxay noo keeneen sharci kaliya ay ku jirto qof iyo cod kaliya laakiin wax alla wixii aan ku heshiinay dowlad goboleedyadii aan ku jirin yay keeneen macnaheedu waxay tahay in deegaan doorashadu dalku ay bahsanaato meel walba la geeyo aan ka ahayn Somaliland anuma doonayn Somaliland in la foqo oo gaar loo dhigo sharcigaasi annagu aan keenay wuxuu ahaan lahaa sharci dalka oo dhan mideeyay yuu ahaan lahaa oo haddii cid ay diido aan loo istaajinaynin oo doorashadu ay ka dhacaysaa Shangaani iyo Shibis iyo Kismaayo iyo Baydhabo iyo Marka iyo Baraawe meel kasta ay ka dhacayso oo cid tiraahdo annagu ka qayb gali mayno waxa weeye bacdama ahzaab ay tahay aysan simple majoritarian aysan ahayn laga rabo qof walba in uu 275 soo qorto oo xildhibaan oo sida ay tahay ku salaysan awood qaybsashada beelaha Soomaaliyeed oo aan anagu niraahno markaan soo gaabino 4.5 aan niraahno marka xisbi walba markuu intaas keensado waxa loo codeynayaa xisbigii marka shakhsi ma aha waxa loo codeynayaa xisbiga waxa loo codeynayaa xisbiga mabaadidiisa waxa loo codeynayaa xisbiga hoggaankiisa iyo shaqada uu hore u soo qabtay yaa loo codeynaya taas ay ka muuqato boqolkiiba 30 dumarka iyo waliba gaar ahaan ay siinayso fursad cidna aan laga tagaynin oo marka la yiraahdo 4.5 ila qabiilada Soomaaliya waa xogaani 0.5 wax fiican ma aha beesha shanaad iyada naftigooda waxoodu ay ku helayaan oo marna uusan ka galin nasiib darro sharcigii wuxuu ku dhamaaday mid in la qabto ay adag tahay xaqiiqatan haddii dalkii uusan mideysnayn heshiis siyaasadeedna uusan jirin oo haddii cid maanta ay tiraahdo aniga magaaladayda ama degaankayga ama gobolkayga lagu qaban maayo hadde waxa weeye wax laga qaban kara ma laha runtii arrintaasi arrin wanaagsan ma ahayn laakiin waa ku khasbanaa waana sheegay habeenkan saxiixay inuusan ahayn sharcigii aan rabay saasay tahayna aanan loo bigaraynin maxaa yeelay Soomaalidu waxay taqaanaa waxaan dan gaar ah kugu jirin ka shaqeyn maysid marka waxaan siri ama lagu arkaa in aad dan gaar ah ku qabto oo aad toonayso dharkeedii saad ku soo noqoto dad badanna waxa laga yaabaa oo runtii lawmakerska naftigoodu mucaarad haddii rabaan iska ahaadaan inay islahaayeen maybe kan aan diidno wax kale aan keenno wareersan waxa laga yaabaa kan farmaajo inuu dan ugu jiro laakiin
أنا وحن أركاي إن دل وجرته شرعي قاسي نظام كاس أنكسر شقين أفرتي سنة الله صودا في حضانا أنا الدقبلوه رئيس الوزراء حسن علي خير سياسة دا يقدرتي لكن هو مواطن صوماليات مدحوينه محمد عبد الله فرماجو وان دلكي يسجعل مواطنيتي يسجعل أنا الدقبلو مواطن ما يقابلي العقل موسين قلبي يقابلي وانا جعل هاي الدولة دا إذا